السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قروحda badan soo dhawaada. maanta waxaan noo wadaa qiso kale oo cusub. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay hooyo lagu magacaabo Intisaar. qisada waxay ka dhacday wadamaha Carabta. qisadan hooyadan waxay tiri maalin maalmaha kamid ah wiilkeyga ii yimid bay tiri, wuu ii baroortay, wuu ooyay, wuxuu dhahay hooyoy wadankan shaqo ma taalo, waxaa rabaa wuu dhahay inaan wadamadaas oo dibadaha inaan kasoo shaqaystaa rabaa in ay caawisid sidaan ku bixi lahaa. marka wiilka aabihiisa wuu dhintay, hooyadaa soo korisay. hooyadii waxay samaysay ilaa wiilkeedu inta ku ooynaay ma daawan kartay, waxay dahab ay haysay ay u xaraashtay. dahabkeeday xaraashtay, wiilkii lacagtii dahabku ku baxay wuu tahriibay, wadamadaas Yurubta u tagay. bas wuu baxay meeshii yani uu socday uu rabay uu tagay. hooyadii markii ma soo xiriirinayo wiilkii ma soo xiriirinayo aan dhahay hooyadiis. hooyadii meel ay ka raadisay male, nambarka ma ay haysato. way raadisay markii dambe way ka daashay, farahay ka qaaday, way iska raaftay. bas say u joogtay hooyadii ilaan hooyacan wiilkeeda ka maqan yahay waaye, say u joogtay iidan markii dambe waxbay raadsatay, way baxday, wiilkeedii ka daba tagtay. marka wiilkeeda ka Sweden uu tagay, hooyadiina isla Sweden-tii ay ka daba aaday wiilkeeda. way aragtay uu soo dhaweyn fiican male, hooyo soo dhawow male, hal qol uu degan yahay ma soo dhaweynayo, kaal ila soo deg warkeeda wadaa. bas hooyadii meelo kale iska raadsatay, dowladda iyo waxaasa way guryo siiyeen. say u joogtayna shaqay heshay, shaqay bilowday, kambaniga ka shaqo bilowday. usbuucii 5 maalin aan shaqaynayay tiri. maalinkiina 7 saacadood aan shaqaynayay, shaqadeyda iyo howlahayga musaka fiican ku ahaa bay tiri, nolol qurux badan ay gashay hooyada. bas hooyadii shaqadeeda ay wadataa, nolosheeda ay habi ku tahay. sidii loo joogay marka wiilkeeda uu yimid maalin maalmaha kamid ah, wuxuuna u sheegay inay dowladda lacaga deyman ay uga qaado. wuxuu dhahay hooyay miya aan lacaga deyman inaad dowladdan iga qaadidaa rabaa, lacagta anaa iska bixinayo, inaa kambani ii khaas ah inaa samaystaa rabaa buu yiri wiilkii. hooyadii beer wax dhalay waaye hayay dhahday, way iswada raaceen, lacagihii ay soo qaaday. marka lacagaha markii lasoo qaadayo kuley nambaro iyo email iyo waxaasaa la kala qortaa. wiilkii emailadiisa iyo nambaradiisa iyo dowladda uu soo qoray. hooyadii maba ka warhaysa afaarahaas, lacagtay u soo qaaday, wiilkay ku wareejisay. bas iyadana shaqadeedii kale wadataa, kambanigay ka shaqaysaa ay shaqaale ka tahay. si loo joogay maalin maalmaha kamid ah, muddo markay kasoo wareegatay, hooyadii wiilkeeda u yimid, kambanigay ka shaqaynaysay ugu yimid. wuxuu dhahay hooyo miya kambanigaas ani adaa isla leh, kambanigeeni waay. marka mar walba uu idhahay bay tiri, hooyo kambanigaa u jeedid iyo shaqadan iyo howlahan kala socdaan ani keligay malihi, hoolaheena waay, waa isla wada leena. mar walba saas idhahay bay tiri, wiligiisana maalin ku shilin igama siinin. bas loo joogay maalinkii dambe, shirkadii meeshii ka shaqaynaysay uu u tagay. wuxuu dhahay hooyo miya kambanigaaga yaalo, keenaa yaalo, waa isla wada leelahay leene, kaasaa ka shaqaynaysaa, kaasaa ka shaqo bilaawaysaa ugu meesha shaqadan iskaga soo tag. bas hooyadii waxay dhahday meeshaan ku faraxsanaa, kambanigan ku qanacsanaa oo shaqadiisa iyo wixiisa dhan aan fahansanaa, wiilkayga daraadiisa uga soo tagay bay tiri, kambanigiisuu i keenay. meeshii haddii la keenay hooyadii, wiilkeeda horta waxaa oo kii u ah secretary u ah nin Swedish ah. waxay dhahday shaqadan kambanigan ka qabanayo oo meeshaan cusub hadda wiilkeyga i keenay, taydii hore ay garaaxa badnayd bay tiri, dhib kuma qabinkaas, laakiin kan maalin walbaan shaqeeyay tiri, waxaana ka shaqeysaa 9 saacadood aan shaqeeyaa bay tiri, 9 saacadood ilaa 10 saacadood aan ka shaqeeyaa. shaqadeydii horena waxay ahayd 7 saacadood. 5 maalin aan shaqeynayay bay tiri, tan usbuucii dhan aan shaqeeyaa, wax fasax dhan ma lihi. rafaad iyo kadeed kadib iyadoo wixii iskaga qanacsanoo iska joogto meesheedii, maalin wiilkii oo waxaa u yimid oo secretary-ga ahaa. waxaa loo sheegay Intisaar miya ahaa hooyo shaqadan fasaxa ka tahay Allah, hal bil aan la shaqeynayso 15 beri, lacagtaada waa leedahay, fasaxaana tahay. waxay dhahday see wax u jiraan, shaqadan ani ma soo dacwoonin, shaqo kalena ma haysti, meeshaan joogay idinkaa iga soo wadeenay, intee aadaan? maya Allah, shaqadan fasaxa ka tahay, waana bixi kartaa, isla haddaba fasaxaata, lacagtaadana waa lagu siinaa. bas iyadoo yaabsan wiilkeeday wacday telefoon waba ka qabanaya, ninka saas dhahayna ninka waxa waaye oo secretary-ga ah. way baxday, wiilkeeda telefoon wuu ka qaban waaye. marka waxaan wacay bay tiri gabar wiilkeeda qabi jiray oo 2 caruur ay u dhashay. gabadhii haddaan wacay waxay idhaahday wiilkaasa kama warhayo, ani adaa ii garoon, mana isku wadanna ma joogno, labadiinaaba isku keeya dhow, ani ma ka warqabi. maxay sameynayeen? iyadii way iska soo baxday, iyadoo marka gurigay deganeyd u socoto, markay saas shirkadii uga soo baxay waxay tiri baabuur le waxaa yimid booliis ah.
waa la i qabtay ay tiri baaburkiyaa la i saaray anoo yaabana oo indhaha ka taagaya maxaa qaldan maxaa sameeyey waxaa la lacagta deenta aa qaadatay sabab aa u bixin weysay waxay dhahday deentee oo deentii maalin hiblaay aa qaadanayseen deentaas waxay dhahdeen wiilkayga u qaadiya lacagta maba idin siinaynin miya ilaan marka ninkan wuxuu shaqada ugu soo burinayayba wuu ogaa in booliis soo socdaan iyo howlahan dhan uu ka warhaay Gmail iyo waxaas la soo diraa wixii dhan gacantiisa ay ku dhacayaan hooyadii kama warhayso miskiinta ahayd hadii hooyadii waa la i wadayay tiri 1 saac iyo bar meel magaalada u jirto oo xabsi ah la igeeyay dhahday dharkayga soo bedelanaa xitaa waa la iga diiday hooyadii miskiinta ahayd waxay dhahday si la ii soo waday waxaa la i keenay xabsi magaalada aad iyo aad uga fog bas xabsigii hal habeenaa soo seexdayay tiri kadib maalinkii labaad ba airportka la i keenay hora diyaar la iga soo saariyay dhahday meelaa u socdo iyo meelaan ka socdo midna ma ogi si la ii soo waday waxaa la iga soo dejiyay bay tiri airportkan oo Turkiga laba nin garbaha ay soo qabteen diyaarada iga soo dejiyeen airportka markay saa ii soo dhax joojiyeen way iga laabteen ay tiri diyaaradooda ay ku laabteen anigii hal senti ma haysto telefoon ma haysto number aan korka sheegi kara male waxaan cuna ma haysto gaajaan naf la ah airportka dhexdiisa ka tuugsi bilowday so airportka ay u dhex socotay marka hooyada Siiriyaan waa iyo wiilkeedaba so airportka u dhex socotay waxa arkeen niman oo Siiriyaan ah isku wadan yihiin dhibaatada soo gaartay iyo waxaas dhan ay uga sheekaysay bas nimankiya sidii magaaladeeda ugu direen oo Siiriya saasay ku laabatay hadda marka hooyada qisada hadda ay sheegayso hadda iyada TV fadhido oo dhibaatadan dhan iyada ka sheekaysay qisadan waxay igu dhacday bay tiri 20 sano ka hor wiilkaygana haddana 20 sano hal maalin ima soo wicin oo hooyoysee tahay oo iga raali noqo oo isee wax ku gaareen xitaa ima lahanay tiri inuu dhintay iyo inuu nool yahay xitaa kama warhay marka hooyadu waxay leedahay wiilkaygii waa ku saamaxay wax walbood igu sameysay cabisa iga tahay ila soo hadalkaaga rabaa anaa ku jecel ila soo hadal marka ka warama bal maxaa dhihi lahaydeen ani waxaan dhahaa qaaniye kole ilaahay wiilkeeda u soo hadeeyo kaas wiilka ma raacin laakiin way jeceshahay ilaahay u soo hadeeyo ay assalaamu calaykum qisad intay noogu egtahay bye